wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xaqul-aadanaha ee xukuumadda Soomaaliya Sahra Maxamed Cali Samatar iyo wasiirka xogeenka wasaaraddaasi Muumino Sheekh Cumar ayaa xafiiska wasaaradda haweenka ee magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay qaar ka mid ah ururada haweenka ee ka shaqeeya horumarinta bulshada. inta uu kulankaasi socday ayaa waxaa looga dooday sidii haweenka Soomaaliyeed ay ula shaqeyn lahaayeen dawladda isla markaana ay qayb ka qaadan lahaayeen horumarka iyo xasiloonida dalka. marka uu kulankaas soo gabagaboobay ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xaqul-aadanaha ee xukuumadda Soomaaliya Sahra Maxamed Cali Samatar iyadoo faahfaahin ka bixisay waxyaabihii kulankaasi looga hadlay. waxaa maanta halkan isugu nimid dumarkii civil society-ga micnihii aan isugu nimid waxay ahayd tan koowaad isbarasho inaan isbarano anigoo ku cusub wasaaradda inaan marka hore iswada barano. tan xigta waa hadda dumar ilaa waqti muddo dheer wadankan usoo dagaalamayay, soo dhisay, u soo codeeyay, u soo qeyliyay, dumar ha ahaadaan, caruur ha ahaadaan, Soomaalinimo ha ahaato, waqtigan ka sii liita ayaga ay ahaayeen dadkii usoo taagnaa. marka maanta waxaan isugu nimid inaan isbarano iyo inaan sameyno sidaan u wada shaqeyn lahayn meesha maanta taagannahay aan hore uga sii socon lahayn, ha noqoto mid bulsho, ha noqoto waxbarasho, ha noqoto caafimaad, ha noqoto dawladnimada, ha noqoto sidaan xaqii dumarka loo sugi lahaa. sidoo kale wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xaqul insaanka ee xukuumadda Soomaaliya Sahra Maxamed Cali Samatar ayaa sheegtay in wasaaradda ay ku jirto diyaar garowga 8 Maarso oo ku beegan maalinta haweenka caalamka. waa qabanqaabinaynaa 8 Maarso. masajkeena ama muhiimadda 8 Maarso ma aha hal maalin kaliya, dhaqan buu noqday hal maalin in la dabaaldego hadda laga dhaqaaqo, laakiin hadda maanta waxaan isku afgaranay maalin walba inay tahay maalinta haweenka. waana ka hadalnay 8 Maarso sidii aan u dabaaldegi lahayn sidoo dhaqanka hore usoo ahaa, laakiin waxaan ku soo kordhinaynaa maalin walba inay tahay hal maalin kaliya hooyo ma nihiin, hal maalin kaliya gabadh ma nihiin, inaan nahay maalin walba. kulankani ay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xaqul-aadanaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo wasiirka xogeenka wasaaraddaasi maanta la yeesheen ururada haweenka ayaa ah midkii ugu horeeyay tan iyo markii ay la wareegeen xilka wasaaraddaasi. Nuur Saciid Taaliil, raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.